naftayda waan la doodaya hadalka waan daboolaya dibadda waan u diidayaa adiga waan ku daryeelaya jacaylka waan dadaalaya. Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga dhammaantiin soo dhawaada. maanta waxaan idin hayaa skin Herbalife Nutrition waxyaabihii skinkayga iska bedelay. marka dhammaantiin rag iyo dumarba asxaabtayda aad baan idin salaamayaa. haddii channelka aad ku cusubtahay subscribe dheh si ay dad badan uga faa'iidaystaan. laga yaabo hooyooyin badan ama rag badan oo wajiga ka cabanaya inay jiraan. marka maanta waxaan rabaa inaan la wadaago skin Herbalife. skinkaas aniga maqaarkayga wuxuu ka bedelay. waxaan ahaan jiray dadka hada jeer maaragtay isticmaala kareemada maaragtay dumarku ay isticmaalaan. markii ay noqotay inaan kareemka iska daayana waxaan la kulmay dhaawac aad u weyn oo aad arki doonto hadhowto wajigayga siduu noqday. finan aad u fara badan oo afka dheecaan ku leh. kadib waxaan baroobeeyay kareemka Herbalife Nutrition oo skin herbal ah oo laga sameeyay waxyaabaha natuurka ah sida qajaarka, dacarta, waxyaabaha natuurka ah. kaasaan baroobeeyay muddo week ah. maanta waxaan la share garanayaa 7 days result oo aad ku ogaan karto 7 cisho gudahooda wajigaaga. kadib wajigaaga waxa la xumarsanay ma jirto, waa kaawa sidiisa waa nadiif. saabuntiisa aan ku soo dhaqay shaambooga waana inuu tusayaan oo meedhaya. kareemkaas ayaan habeenkii marsadaa, night cream kaas. kana waa day cream. habeenkii marka horta intaan marka hore kareemka marsan waa in farahaaga jeermiska ka maydhaa. waayo faraheena inta badan banaanka ku maraynaa waxbaan taabanaynaa jeermiskooda xoog fara badan. kadib markaad farahaaga maydho kadib ayaad waxaad ku maydhaysaa shaambada wajiga. kadib dabadeedna kareemkaad marsanaysaa ka habeenkii iyo ka maalintii. kaasoo kale waxa weeye indhaha hoostooda haddii maaragtay indhahaagu godgod leeyihiin oo kale. kan oo kale waxa weeye scrub weeye kan oo wuxuu kaa caawinayaa isaguna wajigaaga madmadowga iyo finanku markay madmadowga ku reebaan ama wajiga maaragtay daldalool uu leeyahay oo kale ayuu skinka aad kaaga caawinayaa. marka resultigaan ka helayna waad arkaysaa sawirkayga sida maanta wajigaygu ahaa iyo sida maanta uu yahay. faqri weyn baa u dhaxeeya waana ku faraxsanay alxamdulilah. dhammaantiinna waxaan idin rajaynayaa insha allah skinka inaad ka faa'iidaysataan. waayo waxyaabaha natuurka ah wajigaaga xuma yeelayaan, laakiin haddii wixii ay kiimika tahay haddii markaad wiigaad marsanaysana waad qurux badnaanaysaa, wiiga aad daysana waxaad la kulmaysaa dhaawac aad fara badan. marka dhammaantii waxaan leeyahay rag iyo dumarba skinku waa aad buu u muhiim yahay. natuurkuna waa wax aad u wanaagsan. waad ka maarmaysaa maanta dawajirkaaga. haddii waxa jira dumar badan oo doonaya maanta inay dawaday marsan jireen ka tanaasulaan, laakiin waxay marsadaan ama ay ku bedelaan raadinaya. inkasta oo qof walba uu ka cabanayo waan madoowaanaya, laakiin madowgu qof walba midabku u dhashay aad bay u fiican tahay. waliba wadamada qurbaan markaan joogno cadceedu aad bay ugu yar tahay. maadaama cadceedu aad ugu yarto calciumku aad ugu yaryahay, waayo wadankii cadceed buu lahaa. maaragtay jirkeenu wuxuu u baahan yahay wax maaragtay natuura mar walba in cuntadii ay ahaato cunto wanaagsan oo healthy ah. cabitaanka aad cabaysaa cabitaan isu dheelitiran oo sonkor lahayn. kareemada jirka aad marsanaysaa inay kareemo dabiiciya yihiin. waxyaabo aad u fara badan. xitaa waxaa jirta kale qofku markuu wajigiisu qaleylku ku badayo kareemkan oo kale isticmaalayo saliidaha natuurka ah sida maaragtay ooliyada argana waxaasoo kale waad iskaga dhaashan kartaa. marka dhammaantiin aad baan idin salaamaya asxaabtayda qaaliga. mar labaad iyo mar koowaad soo dhawaada. channelka haddii aad ku cusubtahay subscribe dheh. haddii aad u baahan tahay macluumaad ama information qaabkii aad kareemka u isticmaali lahayd waad soo weydiin kartaa. nambarkayga xagga hoose ayuu ku qoran yahay. dhammaantiin aad baan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ramadaan kariim. ciidkana ka faa'iidaysta insha allah dadka wajiga midmadowga ku leh.